sheekh hadan waliyow dadka la asxaan lagu leyn jiray hadda ka hor la midhaysan jiray cidda dili jirtay aniga iyo adiga iyo ilaahay iyo ummadda reer la asxaan oo dhan way garanaysaa dhawaan aragyuku hodin arrimaha meel dheer ka dhugo wadanka u dhaga nuglow wixii dhuuntaada mara dharaartii walba u abtiri dhabcaal yaan lagugu nicin fogaan daawre ahaw dhammaan dadkaaga u sinow madaxweynaha intaasaan leeyahay xusuustana aniga oo saaxiibkaaya ayaan kaaga digayaa inay ka dambayso maalin halisa oo arrintu ka duwan tahay sidan oo qof walba wixii uu yiri la weydiinayo Sheekh Aadan Cabdi Ismaaciil oo kamid ah waxgaradka iyo culimada gobolka Togdheer oo telefishinka Honkebel kula hadlay magaalada Burco ayaa waxa uu ka hadlay ilaa hadda sida ay u socoto xukuumadda madaxweynaha cusub ee Somaliland isagoo dhanka kalena talooyin iyo tusaale halkaas uga diray madaxweynaha Somaliland ee dhawaan la doortay dhanka kale sheekhu waxa uu ka jawaabay hadallo dhawaan ka soo yeedhay sheekh ka soo hadlay magaalada Laascaanood aragtay hambaliyo aan madaxweynaha la doortay u jeedinayo aniga oo maartay ugu hambalyeynaya qaabka uu wax u wado oo la tashiga dadkiisa axsaabta xildhibaanada iyo dhammaan dadkii decision makerka ahaa ee la tashanayo taasoo yareynaysa haddii aanay baabi'ininba mucaaradkii wadanka ka jiri jiray in mar walba uu madaxweynuhu la tashado dadkiisa si wuxuu garanayana loogu adkeeyo waxaanu garanayninna loogu sheego marka madaxweynaha taa waan ku hambalyeeyaa waxaan leeyahay madaxweyne sidaana kuwad cidda adag matana waxaad u sheegtaa inay iska ilaaliyaan faraynta iyo had iyo jeer dacayaadka cid iyaga ka horeysay taas oo keenaysa in ay ka dhacdo wixii Soomaalidu oran jirtay nin sacabtumay ilaaq dalbayo haday iyagu wax maagaan iyagana maagista iska imanayso madaxweynaha intaas baan oranayaa kalimaad kooban baan ugu sheegayaa suugaan ugu sheegayaa madaxweynaha oo ah dhawayso qofkii ku nacab ha dhaawicin kii ku jecel tolkaagu hadduu isku dhaco oday dhexdhexaad shan noqo dhannaba hiil ha u samayn hadduu dhinacyo tirsado adigu kii dhameeya noqo tolkaaga xagtima ka dhowr dhangaagaalaha ka durug mas-uuliyad dhabarka saar dhagaraha weligaa dawe hadday dhacda kugu xuntahay ilaa berrita iska dhowr dhawaan aragyuku hodin arrimaha meel dheer ka dhugo wadanka u dhaga nuglow wixii dhuuntaada mara dharaartii walba u abtiri dhaqaaqilaha iska eeg dhagwayaan lagugu xaman dhabtiyo kala garo riyada dhunkaal yaan lagugu sabin dhabcaal yaan lagugu nicin fogaan daawre ahaw dhammaan dadkaaga u sinow madaxweynaha intaasaan leeyahay waxaan hambalyo isagana u dirayaa madaxweynihii hore oon ugu dirayo sidii wanaagsaneed uu doorashada u qabtay iyo sida uu hambalyeeyay midna waan ugu darayaayo madaxweyne muuse wax badan baad qabatay dadka yiraahdo waxa muu qaban waa dad il qura leh wax badan baad qabatay waxna waa ka xumaadeen wixii aad qabatay waxaad ku darsataa oo kale inaanad ku aasanin mucaaradnimadii shalay mucaaradadii lagugu sameeyay madaxweyne ha ku darsan mucaaradadii lagugu sameeyay mucaaradan adigu intaas wadankeena Soomaaliland baa leeyahay dadka Soomaaliga af Soomaaliya ku hadla waxaan iyo kalimad baan ku oranayaayo waxa weeye waxaynu ku jiraa bishii la oran jiray Rajab waa bilihii Muharram xurmada lahaa bil kamid ah
وبالديق الله دادية وكتهلي سيسين هاي ديق خلي وقتك خلي إيضا ديق مسلمكم مروا البحارين هاي ومروا البنبي وكتل الوامي صلى الله عليه وسلم لسوال الدنيا أهون عند الله من قتل مؤمن بغير حق إيضا صداها بابشاني أي كسي وينتهي أو أي تهي بله حرمة لها مركا دادك وحان لها هاي ديقينا إلهي بقى مركي سهورين حرامي مركا لبادنا وحين نقول شرع بشي حرمة لها تايس كيل علي حسوسنا هذا رجب بينه كشرة وبالحرمة وبال أنا قولدي النبي صلى الله عليه وسلم دي دنيا كسهور شيء أنا دجال كسبين شرين أنا دي جودة دارين شرين كلمة دارين تحسن لهاي عن لهاي إذا أنا قدام بيسين يا شيخ لا يرى هذا شيخ آدم ولي أو غير محيطي لاسعان هذا شيخ صاحب كيبوها وان بدن بانو كلني شيخ sida uu hadda wax u dhigayo ee nusuusta u dhigo ma ha sax sheekha waxaan leeyahay sheekh ilaahay ka cabso maalin baa ka dambaysa difaacu nafsigu midada gurigiisa ku duushay maaha difaacu nafsigu laba guri oo isku yaalo marka gurina adigu leedahay gurina nin kale leeyahay reer burcaahi masalan وترى ديجا كان دفاع يا كدو شكي نينكي كلنا غوريغا كولا لبداد غوري اسكو دغان يهين ما ها شهيد نفسه كما نصوصتنا halkeeda hadhigin sheekhan waxaan leeyahay sheekh iska hubi dadkan hadiya jaruux harka adigoo ka sheekeynaya sheekh aadan waliyow dadkii la ascaano lagu duli jiray labadeenu waynu ka kulanay adiga oo din dawladdu dilku xukuntay xaaladiisa u socdaynu ka kulanay marar badan oo barco ku kulana oo ujeedadu ahayd ninka in la soo daayo ujeedadaaduna waxay ahayd ninkaasi mankii ma dilini ragii dilay waa la yaqaan la ascaanood bay joogaan marka reerkii uu ninkaasi ahaa iyo odayaal kula socdeen waynu kulmina odayaashu waxay yiraahdeen de anagu wax dilay garan mayne haddaad adigu garanayso de noo soo qabqaba kuwa dawladda uge kana sii daaso waxaad ugu jawaabtay dawladda meesha ka jirta iyadoo ha soo xidho sheekh aadan waliyow dadka la ascaanood lagu leyn jiray hadda ka hor la midhaysan jiray cidda dili jirtay aniga iyo adiga iyo ilaahay iyo ummadda reer la ascaanood dhammaan way garanaysaa laakiin mid baynu ku kala duwanahay annagu waxaan garanayaa in dadkaasi uu reer la ascaanood yahay isla markaana laba ujeedo u dilayeen qaarna Soomaaliland nacayb u dilayeen qaarna u dilayeen mas'uuliyad adigu soo waxaad garanaysaa oo igu dheer tahay ashxaasta yihiin baad garanaysaa oo ardayadooda garanaysaa oo halkay joogaan baad garanaysaa marka inta aan uga jeedaa sheekh aadan waliyow waxa weeye ilaahay dambigaaga ha dhaafo sheekh aadan waliyow dadka aad ku eedayso kuma eedaysna nusuustuna aniga oo saaxiibkaaya ayaan kaaga digayaa inay ka dambayso maalin halisa oo arintu ka duwan tahay sidan oo qof walba wixii uu yiri la weydiinayo dadka halka lagu leyn jiray waa dhagar qabayaal dhiig qabayaal gacan ku dhiiglayaal hadafyo kala duwan leh laakiin waad ogtahayo nin reer burca ama hadaan ku iraahdo si kala u dhiganay saaqi intu la ascaanood wax ku dilo hadana la ascaanood ma joogeen ومر باقل ما guureene waad garanaysaa waa la ogyahay reer ascaanood bay ahaayeen marka erayga inta u leeyahay waynta waxaan leeyahay una xadiiska daliishanaysa ahaa maaragtay man qutila duuna maalihi duuna nafsihi ma aha magaalo lagu duulayo degan qofka lagu duulo shahiid ma aha waa mujrim waa dambiili marka intaan ku tilmaamayaa waynta la ascaanoodna aadan waliyow isla garanaynaayo laguma duuline de dawladda iyagoo kamida baa dawlad lagu wada dhawaaqayo la ascaanood la degayo la ascaanood iyadoo la jooga marka adigu ciidan ku kacay wax kasta baa noqday dad kale ku kacay arintaasay ku dhacday duulaan cid lagu duulay ma jirin wixii dhacay dhibaatada halka ka dhacdayna waxaan hay dadka ka xun laakiin soo qaadkeeda waxa dhaamayna la soo qaadin waayo burco wax ku soo noqonay 19 iyadoo jirinba
ma yahayn Burco waxaanu ka tagnay iyadoo magaalo ah waxaanu ku soo noqonnay iyadoo aan magaalo ahayn oo baaba ah cidna looma haysto nin waliba wuxuu buulan karayay dad baa isku qabsaday jagooyinkoodu dhinacay u kala jeedeen guriga uga dhisnaayeen baa isku qabsaday kala garan waayay jagadoodu halkay ahayd ma halkanayd masaxalkanay tayd marka oo loogu garnaqa marka haddana cidna maanta cid looma haystee wixii dhacay un bay raaceen arrimaha aan sheekha ku wacdiyayna waa inta sallallahu ala sayyidil mursalin